بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa inaan idin wadaago study aan ka sameeyay Soomaaliya lana publish gareeyay last year. wuxuu ka hadlayaa ciwaanku astaamaha dhaawacyada iyo isbarbardhigga qaraxyada iyo xabadaha. وكان وحلو ببلش قري journal for orthopedic surgery and research marka adduunka dagaalada iyo qaraxyada xabadaha waxay ku hayaan caafimaadka adduunka ay dhibaato aad u ba'an ujeedada study-ga aan sameeynay waxay ahayd inaan ogaano astaamaha iyo isbarbardhigga dhaawacyada ay sababaan qaraxyada iyo xabadaha xabadaha iyo qaraxyadu waxay noqdaan marka la fiiriyo disasterska adduunka boqolkiiba 70 halka 20% ka mid ah ay ku dhintaan meeshii ay musiibadu ka dhacday. study laga sameeyay Iraq iyo Afghanistan oo aan kala mid nahay dhanka dagaalada waxay soo wariyeen in limbisku ay yihiin meelaha ugu badan ay gaaraan dhaawacyada jirka laga soo bilaabo dagaalka labada adduunka boqolkiiba 70 ka mid ah dhaawacyada waxaa sababa qaraxyo inkastoo dagaalka markuu bilaabanayo ay ku badan yihiin dhaawacyada ka imaado xabadaha. Soomaaliya oo caafimaadkeedu burburay waxaa dhibaato ba'an ku hayo war and conflicts oo sababay dhimashada kumanaan qof dad badanna ka dhigay curyaamiin. daatadeedu waxay noqonaysaa 333 qof oo aan ka sameynay muddo 3 sannadood ah aan si retrospective u fiirinay numberka marka la fiiriyo dhaawacyada boqolkiiba 66 waxa sababay xabad halka boqolkiiba 33 ay ka imaatay qarax. marka la soo bardhigo dumarka iyo ragga waxaa ku badnaay ragga sababtuna waxaa ka imaan doontaa gadaal. marka la fiiriyo open fractureska wuxuu aad ugu badnaa gunshotska waayo plastic woundska inta badan waxaa imaan karto in pressure-ka qaraxa ka imaado uu qofka derbi ku dhifto saasna uu close fracture ugu dhaco. sidoo kale plastic woundska waxay aad u lahaayeen associated injuries like head, neck, trachea, abdomen and also urological problems or injuries. marka la fiiriyo ICU admission hospital stay-ga wuxuu aad ugu badnaa dadka plastic wound ku dhaawacmay. taylor wuxuu soo koobayaa all the results halaba taabo karno. marka la fiiriyo xabadaha iyo plastic woundska in both groups waxay aad ugu badnaayeen ragga maadaama ay raggu ku badan yihiin meelaha fadhiisiga iyo meelaha qaraxyada ka dhacaan ayna sabab u yihiin dagaalada naftirkooda. marka iyaga ugu horeeyo dadka dhaawacmay blastiga wuxuu aad ugu badan yahay marka la fiiriyo combined extremitiska oo upper and lower qaraxyada wax ka imaado dhaawacyada qaraxyada ka imaado waa iskala ekaayeen. sidoo kalena saa hore soo sheegnay associated injuries wuxuu ku badnaa plastic woundska. study laga sameeyay Iraq waxay sheegayeen in upper extremity ay ku badnaay maadaama marka dagaalka bilaabanayo oo wax ku bilaabaan xabado. findings-keena saa sheegnay combined upper and lower plastic wound ku badnaay halka gunshots ku badnaay upper extremity-ga. study laga sameeyay Soomaaliya sidoo kale waxay heshay in open fractures-ka ku badan yahay gunshots-ka. conclusion xubnaha sida limbiska waa meelaha ugu badan oo ka soo gaara dhaawacyada qaraxyada iyo xabadaha. si loo maangareeyo dhibaatooyinkan waxaa loo baahan yahay complex and multidisciplinary approach. aad bay umahadsan tihiin. tan waa sawiro oo kasoo qaaday some cases. case-kan aragtiin waa close TB fracture waaye wuxuu develop garay compartment syndrome wuxuu ka yimaaday qarax waxaa loo sameeyay axis fix and fasciotomy
sidoo kale kiiskan arkaysiin waa qarax waxaa laga soo bixiyay jaqaf weyn waaye oo abdominka iyo pelvis isaga dhex baxay. This closed femur fracture due to plastic also, and this also IED, both lower limb crash injury due to blast. This also proximal TB fracture due to plastic wound, so it was also a closed fracture. And this picture is a gunshot wound fixed with a plate. Thank you all.